kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee Chegan Channel TV oo aad had iyo jeer uga barateen dhacdooyinka dunida iyo qodobada kale iyo waxyaabaha kale ee cusub maalintaas in aan idinku soo gudbino sidii caadadaynu ahayd. caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobada ugu doorka roon wararka caalamka iyo Soomaalidaba. qodobadeena caawa aynu ku soo qaadan doonaa waxaa kamid ah wadanka Soomaaliya oo noqday wadankii ugu dhimashada badnaa adduunka. qorbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa waxay sheegaysaa inay sanadkii labadii sano ee u dambeeyay wadanka Soomaaliya ku dhinteen dad ka badan 2,000 oo qof. warbixintan qaramada midoobay ay si qoraal ku soo gudbisay ayaa waxay sheegaysaa in 2,000 ee qof ay ku dhinteen intooda badani magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo agagaarka u dhow. dadkana lagu dilay intooda badan qaraxyo, dil toogasho iyo dilal qorshaysan oo meelahaas inta badan ka dhacayay waa sida ay sheegtay UN. waxa uu lixirka isku sii shareerisay xiisadii ka dhalatay saxiixii uu madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu saxiixay Israa'iil inay iska leedahay magaalada Qudus. waxaa la sheegayaa inay caradu weli sii kordhayso. toddobaadkii dhaweydun bay ahayd markii ay wadamada jaamacadda carabtu ay soo saareen eray bixintii ugu adkayd ee intii muddo la xasuusto oo ay ku sheegeen ay ku cambaareynayeen wadanka Mareykanka iyo dowladda Israa'iil. waxaana la sheegayaa inay soo xasuusiyeen dagaalkii 67 inuu soo hurayo mid u eegi. waxaana ugu adkaa wadamada ka soo horjeestay wadanka Lubnaan oo isaga laftirkiisu kala qaybsanaan weyn ka jirto, hase yeeshee sheegay in Mareykanka ay ku wanaagsan tahay in xiriirka loo wada gooyo isla hal mar. dhegeystayaal waxaynu iminkan eegi doonaa barnaamijyadii ciyaaraha iyo isbedelada liigaga ku yimi gaar ahaan qaaradda tan Yurub. waxaa shalayto la ciyaaray kulamadii ugu adkaa ee liigaga Premier League iyo La Ligaha, waxaana iska hor yimi kooxo waaweyn oo ka tirsan labada horyaal aan idhaahdee. haddaba ciyaarta ugu xiisaha badnayd ee aadka loo sugayay ee muddooyinkan balax saadaalinaya waxay ahayd in ay la daawado ama laga dhur sugo kooxihii isku haystay hogaanka ee Manchester United iyo Manchester City. oo Manchester City marti u ahayd Manchester United ayaa waxaa ku guuleysatay kooxdaasi Manchester City. Manchester City ayaa 2 gool oo ka kala yimi difaacooda Tomendi iyo ninka kubadsameeyaha ah ee la yiraahdo David Silva guushu ku raacday. waxaana la sheegayaa inay iminka koobku ay u badan tahay inuu xaggeeda yahay, inkastoo waqti badan ka harsan yahay. dhinaca La Ligaha waxaa la sheegayaa inay kooxaha reer Spain ay fooda isku dareen kooxda Villarreal iyo kooxda hogaanka haysa La Ligaha ee Barcelona. waxaana si qurux badan ku soo badisay kooxda Barcelona oo 2-0 ku soo tuntay, iyadoo hore loo ogaa inay kooxda Real Madrid maalintii Sabtidii iyaduna soo garaacday kooxda Sevilla oo 5-0 ay ku soo garaacday. dhegeystayaal halkan aad warka kala socotaan waa Chegan Channel TV oo had iyo jeer ka dhegeysataan bartaan ku leenahay youtube-ka. dhegeystayaal mar walbana waxaan idinka codsanaynaa inaad noola soo socodsiisaan wixii had iyo jeer aad dhibsataan ama aad ka diidaan wararka yaga oo aad si toosan